waayahay kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal shacabka Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan waxaan wada gudagalaynaa lafagurkii barnaamijkii ama loolankii adkaa ee maanta ka dhacay xarunta baarlamaanka waxaan u hambalyeeyaa dhammaan kuwa guuleystay iyo kuwa laga guuleystay waxaan ku daafurayaa shirifka la yiraahdo aragnay ifafalaade alaabta mad aruursatan aragnay ifafalaade alaabta mad aruursatan waxa weeye wax yaab laha dhacay maanta waxaasna waxa keenay waxa weeye talaxuma keentay oo dadka maanta uu helay Faarax Cabdulqaadir meel maanta la iga qoro adaa hasataan arintii Jawaari waa ka hadlay guushiisii waa si saadaaliyay qiimeyn iyo xog aruurin aan sameeyay ayaan ku saadaaliyay guushiisii saaka iyo xalayna adaa hasataan fiidii waan soo duubay waa si saadaaliyay in Cabdiweli Muudey iyo Mahad Cawad ay ku soo bixi doonaan doorashada Faarax Cabdulqaadir Soomaaliyeed weeye uu loolamay kursi uu waayay xaqiiqa dhig asaga arintiisa isagoo qof shakhsiya xaq iska dhig sagaashan iyo intuu helay Faarax Xasan Sheekh Maxamuud ma heli doono maxaa yeelay Faarax saaxiibo leeyahay hawiyo saaxiibo ku leeyahay daarado saaxiibo ku leeyahay ilaahay kuma soo diiday diro saaxiibo ku leeyahay beeshana saaxiibo ku leeyahay waa nin galgal badan codka uu helay Faarax Cabdulqaadir Xasan Sheekh Maxamuud ma heli doono حسن الشيخ محمود لحدن يسدح وليك كواد ما صار دافع دونه لحدن يسدح عط ما صار دافع دونه وحاوي شن أودود أيا دورشة كل الله مية شن أودود أيا دورشة كل الله مية سدح أودود أيا أوج حوق بدن دورشة كل الله مية سدح أودود أيا أوج حوق بدن سدح أودود وحوق بدن وحاوي وشنت أودود وحاوي وحسن الشيخ محمود وشريف حسن الشيخ آدم ومحمد عبد الله فرماجو وعمر عبد الرشيد وشريف شيخ أحمد شنطة صارت البرلمان كوجو حوق بدن سدح أو سي حوق بدن مركب وشريف حسن الشيخ آدم ومحمد عبد الله فرماجو وحسن الشيخ محمود حقيقة اللي الشيخ يا مانتا ما يقرأ عنك waxa ugu xoog badan saddexdaas ugu xoog badan farmaajo garguurte iyo shariif sakiin ayaa ugu sii xoog badan shantaas saddexdaas ugu xoog badan waayahay waxaan marka rabaa inaan marka hore horta iraahdo rag dhalinyaro ah oo xifaaqta igal dhaxeeyay oo waxa dhacay intaan u sii sheegay nolol qiyaali ku noolaa سعيال السوق نمان أقوم ما هي مان ترترقاس وحن لياي عرورت الناس هاي ويكو عياري كران لكن حنيها أبوت كم عياري كران عرورتو ناس هاي ويكو عياري كران لكن حنيها أبوت كم عياري كران سيدا هاي دكوس الشيء
waxay ku xirreed oo awoodda lagu tijaabiyey faarax cabdiqaadir dagaal adag baa dhacay oo damo jadiid iyo u dhaxeeya Soomaali weyna dhacay maanta waxa weeye waxa meesha yaalla marka oo inaan ka hadla aan rabo waxa weeye waxa maanta dhacay xasan garguurtay quusiyeen laakiin horaan u sheego siyaasiga wuxuu ku jira koomo xildhibaano badan baa u tagayo lacag baa laga rabaa adaan ku taageersanahay adaan ku garab joognaa adaan kula soconnaa wixii run u qaata xasan garguurtay run ma aha haddaba xasan garguurtay iyo damo jadiid maxaa dilay maanta waxa dilaan idin sheegaya horta public features dadka la yiraahdo ee meediyaha ku jiro ama dad kale intee afmishaarada ah waxba kama haystaan horta ayagu diiradii waxaa la saaray xasan garguurtay iyo damo jadiid diiradda la saaray dadkii wax qoraya saxaafadda ugu afka dheeraa dadkii kale intee ee propagandada qatarta ku ahaa cid walbaba focuska ayaga unba saaran yahay ayagina halkii laga sugaayay inay dadkaadina helaan waxay keensadeen mid yaroo jamiisle cabdiraxmaan yunus oo la yidhaahdo oo maanta wasiir soo noqday haddana hoos u dallacay iyo mid yaroo shadar xaaji la yidhaahdo oo jawhar sambuus ku wareejin jiray iyo saadaq iyo cali balcada waxaa leeyahay idinka cod saxaafadda madaxa warfaafinti kuwaasaa marka lacagihii loo dhiibay intay iska cunaan waxay yidhahdaan hebel intaasaan siinay wabsad hebel intaasaan siinay saanaan yeelnay micnaha waa dad aanan lahayn wax sumcada iyo wax sharafa aan lahayn oo hadalkooda uusan 5 qofood gaaraynin ayuu horta rafbida halkaas horta kaga qaldameen odaga ee murashaxiinta la tartamaysa ee Umar Cabdirashiid uu kamid yahay marka la fiiriyo haddii dadka qaar ka hadlaan Umar Cabdirashiid madaxa la qabsanayaa qof Soomaali oo damiir la markaas cod siimayo laakiin aqliga damo jadiid ayaan ahayn tan kale wax ismoodeen inay wax walba lacag ku xalin karaan wax walba lacag lagu xalin karo wax dilay wax walba lacag lagu xalin karo Soomaali ninka Ethiopian lagu sheego oo qofka Ethiopian ba lagu maqlo waa laga ordaa qof Soomaali wax gala qof Ethiopian oo ku maqlay ag taagnaa qof lagu sheegay isdaba mareen iyo wax kale oo qalad ay qashina qofka Soomaaliga waa ka ordaya ma fahamteen marka waxa weeye wax weyn baa dhacay wax weyn ayaa maanta dhacay maanta maalin Soomaalida u gaara weeye waa maalin qof kasto kule qof kasto wax garto oo ku xaqiiqsanayo xasan garguurtay halku taagan yahay xasan garguurtay iyo asxaabtiisa damo jadiid haday sidaa ku wadaan loo lag odaga waa ku daayay doonida degays dadka saaran dushooda naxdin waa la dirsaanay ku jiraan caaw xasan waa ku daayay haday saa ku socdaan haddii xasan xaqiiqsado in rabitaanka dadkiisa taageero shacabka dadka moraalka uu wax ku yahay waxa laga yaabaa inay wax isbedelaan anigu saaqligaas inuu xasan leeyahay anigu ma aaminsani inay damo jadiid leeyihiin ma aaminsani waxaan ku aqaadad qiyaal ku nool oo isu sheego waana la wataa xildhibaanada albaabada taagan halkaas ay noo soo marayaan safaan noogula jira annaga bisinka annaga ugu cod badan waxa weeye waxaan dhibcaha iga qornayseen jawaar dhibci waa idinka helay Soomaalidu waa saxsadaa waxa la rabaa maadaama aan qiimeyn sameeynayo xog ururin sameeynayo wax idin sheegayo waxaan kirid u leeyahay asiisan malaha Amin Artist News Amin Amir malaha waa u sheegay dhalinyarada Amin Amir Maxamed malaha Facebook-yadaas aad arkaysiin wax la soo gudbinaya xasan garguurtay iyo lagu amaanay damo jadiid fa Amin Amir malaha yaana beenta la sheegin anigana malihi anigu waa kana Facebook-gayga mid kale tiga isaaran buluug ah saas ay u garnaystaan ma fahamteen waxa weeye kadib baan rabaa inaad ishiisaan
haddii wax iska bedelaan waxaa ii sheegana waa soo sheegayaa laakiin ilaa hadda wax iskama bedelin halka dhibic ee koowaad waxaan ku qaatay jawaari waa inaad ii qirataan tan ku xigto waxaan ku qaatay cabdiweli muudey tan kale waxaan ku qaatay mahad cawad tan noo xigta ee aynu ku ballamayna ee isugu imaan doonna waxa weeye cabdi xaashi cabdulaahi guddoomiyaha aqalka sare ee odayaasha ama senatarada in ninkaas oo ah nin isaaqa oo habar awala oo sacad muuse guddoomiye loo dooran doono ayaan idin sheegay 4 dhibcood ay noqonaysaa kan shanaad waxaa idin sheegay shariif sheekh axmed inuu madaxweyne dalka noqon doono hadday wax iska bedelaan oo saacadaha ugu dambeeya 5 maalmood gudahood ayay isbahaysiyada balansan yihiin waxayna isbahaysiyada u balansan yihiin shariif sheekh axmed iyo cumar cabdirashiid hadday wax iska bedelaan oo shariif sheekh axmed heshiiska lala gelayo oo ka dhiga adeego oo cumar ogolaado waa idin soo sheegi doonaa hadduu shariifka sidiisa codka u haystana waa idin soo sheegi doonaa 4 aan halkaas ku haystaa haddaan sii sheegay ninka madaxweynaha 5 ayaan saas ku haystaa 6 ra'iisul wasaaraha haddaan ra'iisul wasaaraha waayo nooca xagasha caafiyo laakiin aniga waxaan jeclahay inaan ra'iisul wasaaraha sheegi doono madaxweynaha idin sheegi doono guddoomiyaha golaha aqalka sare ee senataradana waxaan idinku celinayaa waxaa loo dooran doonaa cabdi xaashi cabdulaahi dhibcaha saasan kala haysanaa mar labaad waan leeyahay nin cabdifataax xamli asaak wuxuu yiri sharadan kala galnay nin kale wasiir oo aan saaxiibannahayna sharadan galna xalay laakiin ku diga maayo inkastoo laga biyo yiri waa lagu digtaa ruux hadduu ku daraajiray cabdiraxmaan yuusuf iyo cali balcad iyo shadarna waxaan leeyahay ha karaama seegina habaar leeyu kari waaye anigu shacabka hadda ani muudey ma taageeran u ahaa waa maya jawaari ma taageeran u ahay waa maya mahad cawad ma taageeran u ahaa waa maya laakiin anigu waxaan sheegayaa shacabka waxaan ogahan u sheegayaa aniga kama sheekaynayo wuxuu yahay taageeradii kama sheekaynayo qofka aniga rabo waxaan shacabka u sheegayaa wixii jira ee xaqiiqo ah arrinta shariif sheekh axmed haday wax iska bedelaan idin sheegaya laannu anigu inta oo baan idin qaabilsanaynaa xog macluumaad sax idin keeno marka waxaa weeye waxaan leeyahay cabdiraxmaan yuusufow meelahaga iska yuus shadar xaajiyow meelahaga iska yuus xasan garguurta koomuu ku jiraa been u sheega oo dhaha sidan hebel wax ma ahayo hebel saan waaye adaa madaxweynaha iyo intaasoo xildhibaana kuu soo codaysay iyo warbaahintii madaxa banaad gacantan kugu haynaa waxa u sheega warbaahinta madaxa banaan waa taa habiqlayso wey waa daahir calasow xaqiiqsada shacabka Soomaaliyeed weydiiya anigu waxay igu yaqaanaan boqol cadow waan leeyahay laakiin waxaan uga guulaysanaya cadowgay waxa weeye anigu been kuma safaado anigu waxaan ogahay ee xaqiiqa ah ee runa sheegado aabahiina runtan u sheega haddii aabahay qisad qosaysa ay tahay runtan ka sheegay kama la leexdo afkaygana waa kaasoo qof qaba karta male oo nimankii la dahabshiilo milyaneeraha afkay qaba waayo waxa weeye war weyn baan idin hayaa waa ila soconaysaan war aad la yaabtaan baan idin hayaa xasaasiya waxa imaad doona ee xigi doona ma ahan kaliya in xasan garguurta laga guulaysto ma ahan arrin weyn baan hayaa information maskaxdiina ka weyn oo aad la yaabi doontaan baan hayaa waxaan doonayaa intaan ku degdegin waxa ka imaan kara informationka soo bixiyo inaan la tashiyo soo sameeyo markaan soo sameeyo isku soo laabano idin waramo habiqlaysa iraahdo maanta waxa weeye sheekadu waa sheeko way dhaaftay sheeko way dhaaftay wariyaashana waxaan leeyahay wariyuhu ma waxa weeye intuu meesha istaagan uu yiraahdo hebelaa codeeye hebel intaasoo helay saas wariyuhu ma ah wariyuhu waa waxa ay dadka arki karin inuu keenaa wariyuhu waa inuu usii waramaa shacabka oo u sheegaan natiijooyinka isaga u socdaan dabaysha siyaasadeed waa inuu yeelan karaa karti
iyo hufnaan iyo galgalnimo intaasaan idin leeyahay wariyuhu waa inuu yeelan karaa galaangal awoodaha shariif xasan sheekh aadan hadduu farmaajo raaco iyo hadduu shariif sheekh axmed raaco iyo hadduu cumar cabdirashiid raaco saddexdaasi qol raaci doonaa awoodaha intaa wey waxaa soo leexeeya awoodaha xisbiga daljir ee axmed macali faqi iyo xasan macalin kooxaha ay raacaan iyaguna waxay leeyihiin awood buuxa maxaa yeelay xisbiga daljir iyo qolooyinkaasi aala sheekh ahaa waxay haystaan 53 xildhibaan ayay ku dhex leeyihiin baarlamaanka marka wariyaasha Soomaaliyeed waxaan leeyahay yaan laga soo waramin hebelaa codeeyay hebelaa qarax ku dhacay xagga wax ka dhaceen maaha warinimada waxa weeye waa talent wariyuhu waa inuu indhaha gorgorka leeyahay oo waxa soo socdo oo qiimeyn karo dabaysh siyaasadeed qiimeyn karo intaa weeye way ku dheeraad warku way ugu badan yihiin mar labaad waxaan leeyahay caruurtu naasaha hooyadu way ku ciyaari karaan laakiin xaniyaha aabahood kuma ciyaari karaan damo jadiidow ifaafalada waa aragtiine alaabta maad aruursatiin ha biqlayso